munaasabad lagu soo bandhigay muhiimadda dalka uu leeyahay nidaamka garsoorka iyo xeer ilaalinta oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho warkaasina waxa eegaya wariyaheena Muuse Ismaan Abto munaasabadan lagu soo bandhigay cilmi baaris ay sameeyeen qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Indian Ocean ee la xiriirta sidii loo dardargelin lahaa howlaha xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo arrimaha garsoorka oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano macallimiin kaasi uu soo qabanqaabiyay maamulka jaamacadda Indian Ocean ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cilmi iyo Maxamed Xasan Aadan oo ka mid ah ardayda soo bandhigay cilmi baaristaasi ayaa ka warbixiyay muhiimadda cilmi baarista ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka waa qayb ka mid ah garsoorka xeer ilaalintu wuxuu u hoggaansan yahay sharciga oo kaliya loomana isticmaali karo qaab siyaasadeed xarunta xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waa caasimadda Muqdisho awoodda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxay ku fidsan tahay dalka oo dhan hadda waxaa gobolada dalka ka howlgala 25 xeer ilaaliye haddii aan qeexo mas'uuliyadaha xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaa ka mid ah dhowrista sharciga difaaca xuquuqda dawladda difaaca hay-adaha dawladda difaaca daayarta iyo difaaca naafada waxaan kaloo ku soo ogaanay cilmi baaristeena in xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu ku shaqeeyo xeerka nidaamka garsoorka ee la sameeyay June 1962 gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Indian Ocean Cabdulqaadir Maxamuud Coodosh ayaa u mahad celiyay ardayda sameysay cilmi baaristan wuxuuna tilmaamay in cilmi baarisada noocan wax weyn ay ku kordhin doonto howlaha xeer ilaalinta iyo arrimaha garsoorka xafiiska xeer ilaaliyaha wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu u dacwoodaa dawladda asagoo dacwo ku ooda isla dawlad kale ama company ama shakhsi marka dhibaato u geystay dawladda ma shacabka Soomaaliyeed waxa loo ogolaadaa qofkaas kale ama dawladdaas ama companygaas qareeno marka waxay soo yimaado waa xafiiska xeer ilaalinta garyaqaan Maxamed Nuur Sheego ayaa sharaxaad ka bixiyay howlaha xeer ilaalinta iyo arrimaha garsoorka wuxuu ka mid yahay heerkulka saddexaad ee dawladnimadu ka mid yahay xafiiska xeer ilaaliyaha guud wuxuu ku dhex jiraa garsoorka dalka waa xubin ka mid ah garsoorka dalka xeer ilaaliyaha guud wuxuu hoos yimaadaa guddi la yiraahdo guddiga adeega garsoorka oo haga siyaasadda guud iyo jihaynta maamulka garsoorka Muuse Ismaan Abto telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho